Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkan waa muuqaalka TV. waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda dalka Itoobiya, gaar ahaan waqooyiga dalkaasi. Qodobada aad daawan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqonaya Shiinaha iyo Mareykanka oo ku hardamaya dalka Itoobiya. Dagaalka ayay labada dhinac ee TPLF iyo Itoobiya ku kala taageerayaan. Warbixin ayaynu idinkaga soo gudbin doonaa ayaa ku adkaaday iyo saxaalku ku xun yahay. waa daawan doontaa saaxiibayaal. sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, oo sheegay in aan dagaalka Tigray looga guuleysan isla markaana wili ay sii wadaan. waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa daawadayaal yaa kale oo ku hardamaya Itoobiya oo dagaalka qayb ka ah. wadamo reer galbeeda oo aad u fara badan ayaa la soo warinayaa inay dagaalka Itoobiya qayb ka yihiin, isla markaana mid walba uu dan gooniya ka leeyahay dagaalka dalkaasi. qodobadaasi aad bay nagu soo kordhaa ayaanu idiin soo gudbin doonaa daawadayaal intaanu barnaamijkeena ku guda jirno. balse haddii aad nagu cusub tahay marka ay kugu horeysayna daawanayso, subscribe channelka inoo saar, sii share garey muuqaalka oo laag saar, sidoo kalena gambaleelka furo si mar walba kuu soo gaaraan xogaa aynu halkan soo gelino. waadna ku mahadsan tahay saaxiib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga. intaba aynu ku bilowno markan. sida aad barnaamijyadeennii iyo wararkeennii horeba aad ku daawateen saaxiibayaal, dalka Itoobiya waxaa ka soconaya dagaalo aad u qaraar oo u dhexeeya ciidamada dalkaasi iyo jabhadda TPLF oo iyaduna ka dagaalanta gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya. dagaalku ma aha kaliya mid ciidamada dowladda iyo kuwa TPLF u dhexeeya, balse waxaa kor kala socda wadamada reer galbeedka qaarkood oo iyagu siyaasad ahaan isaga soo horjeeda. Ruushka iyo Shiinaha oo isku dhinac ah waxay aad u taageerayaan dowladda Itoobiya, halka dowladda Mareykankuna ay aad u taageerayso jabhadda TPLF oo saanad military iyo qarash fara badanba ay ku bixinayso si meesha looga saaro ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo taageero xoogan ka helaya laba quwadood oo waaweyn oo Ruushka iyo Shiinaha kala ah. Ruushka iyo Shiinaha iyo Mareykanka ayaa waxaa ka dhexeeya siyaasad aad u xun iyo dagaalo siyaasadeed oo aad u qaraar, iyagoona markaasi wadamadaasi ay isku haystaan awoodda markaasi cidda maamulaysa koonkan. waxaana markaasi la soo warinayaa in wadamada Shiinaha iyo sidoo kale Mareykanku ay aad markaasi ugu hardamayaan dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Mareykanka ayaa bedelaya ergeygii gaarka ah ee Geeska Afrika dagaalo markaasi ka socda waqooyiga dalka Itoobiya awgood. Jeffrey Feltman ayaa xilka ka degi doona maalmaha soo socda. Mr. Feltman ayaa qorsheynaya inuu baneeyo xilka kadib marka uu booqasho ku tagay Itoobiya oo muddo 24 bilood ka badan uu ka soconayo dagaal gobolka Tigray ayna ku dhinteen 100,000 oo qof. diblomaasigan Mareykanka ah ayaa waxa uu shalay la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, sida laga soo xigtay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. David Startlefield oo ah safiirka Mareykanka ee Turkiga ayaa xilkaasi la wareegi doona, sida markaasi lagu sheegay war-saxaafadeed uu shalay soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in waaxdu ay qorsheynaysay in Feltman uu ergeyga gaarka ah ee dalkaasi sii ahaado wax ka yar sanad, isaga oo markaasi intaa ku daray inuu sii wadi doono doorkiisa ka talineed. Satile oo ah markaasi rugcada muddo 40 sannadood ah ka shaqeynaya waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wuxuu ahaa safiirka Mareykanka ee Turkiga, halkaas oo uu dhexdhexaadiye ka ahaa xiriirkii xumaaday ee labada dal ee xulafada la ah NATO. dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xukuumadda Beijing degdeg u soo magacaabi doonto ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika si uu gacan uga geysto xalinta dagaalada uuna markaasi u taageero ammaanka iyo baraaraha. arrintan ayuu kaga dhawaaqay xilli uu 6 bishan booqasho rasmi ah markaasi ku joogay dalka Kenya. wasiirka ayaa markaasi dalka Geeska Afrika ugu baaqay inay mustaqbalkooda iyagu ka fikiraan. Wang ayaa booqasho ku jooga Eritrea iyo Kenya tan iyo 4 bishan. maanta ayuuna markaasi jasiiradda Comoros ku soo gabagabeyn doona booqashadiisa qaaradda Afrika. madaxweynaha Kenya ninka lagu magacaabo William Ruto ayaa sheegay in xiriirka dalkiisa ee Shiinaha uu yahay iskaashi saaxiibo wada shaqeynaya si looga gaaro kobac dhaqaale. maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ku cadaadinaya muwaadiniinta Mareykanka ee Itoobiya inay isaga tagaan dalkaasi, isla markaana maamulkiisa uu caawimaad dib u dejin markaasi u sameynayo dadka aan awoodin tikidhada diyaaradaha.
dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa amarkii markaasi uu booqashada ku joogay Addis Ababa wuxuu cadeeyay in Shiinuhu uu si buuxda u taageerayo dowladda Itoobiya. tan ayaa ka duwan hanaanka markaasi Mareykanka oo cunaqabatayno ku soo rogay Itoobiya balse kuma uusan soo rogin dagaalyahanada Tigray. labada dal ayaa u muuqda kuwa markaasi si weyn isugu haya siyaasadda Itoobiya iyadoo midna uu cunaqabatayn ku soo rogay midna uu taageero u fidinayo dowladda Itoobiya. haddaba yaa kale oo markaasi ku hardamaya dalka Itoobiya iyadoo xiriirka dowladda Itoobiya ee Mareykanka iyo midowga Yurub oo sii xumaanayay ayaa waxa ay dowladdu bilowday in ay raadiso xulafo kale si ay cagta u mariso dagaalyahanada TPLF. Mareykanka ayaa dhawaan cunaqabatayn saaray Itoobiya isaga oo ku eedeynaya meel ka dhac baahsan oo xuquuqda aadanaha ahi. Kitij Trovel oo ah markaasi professor daraasaadka dagaalka ka dhiga jaamacad ku taala dalka Norway ayaa waxa uu sheegay in tani ay horseeday in Itoobiya ay diiradda meel kale saarto. dowladda Itoobiya waxa ay dareemaysaa in ay ka maarmi karto galbeedka ayna hub ka heli karto Iiraan, Turkiga iyo Shiinaha, sidoo kalena deymo ay ka qaadan karto Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayna garab difaac ka heli karto Ruushka iyo Shiinaha, ayuu yiri isaga oo farta ku fiiqay in labada dal ee ugu dambeeya ay diideen soo jeedinta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ah in qaraar laga gaaro dagaalka sokeeye. waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in Shiinuhu uu hub u qaybinayo ciidamada Itoobiya, waxaana ka mid ah hub isugu jira kuwa dhexe iyo kuwa ridada dheer. dowladda Iiraan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Muhajar 6 ay siisay dowladda Itoobiya, waana isla hubka uu ururka Iiraan ay taageerto ee Xisbullah u adeegsaday dowladda Suuriya. Imaaraadka Carabta ayaa iyaduna horay markaasi diyaaradaha dagaalka iyo qaar kamid ah hub Israa'iil lagu sameeyay siisay dowladda Itoobiya, waxaana hubkaasi kamid ah nooca Winglong ee Shiinaha markaasi lagu sameeyay. Shiinaha ayaa u muuqda mid markaasi doonaya inuu meesha ka saaro Imaaraadka Carabta oo loo arko inuu Mareykanku taageero isaga oo kaashanaya Iiraan. dagaalka ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ayaa waxaa dhawaan ku gacan sareeyay ciidamada dowladda oo toddobaadyo ka hor u muuqday kuwa looga adkaaday markii ciidamada TPLF ee qiyaastii 209 kilomitir wax ka yar u jirsadeen caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. dhanka kale kumanaan Itoobiyaan ah oo ku nool Mareykanka ayaa qaar ku hor banaanbaxay banaanka aqalka cad iyaga oo ka careysan in Mareykanku uu la saftay kooxda TPLF. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in uu gacan ka geystay dhexdhexaadinta labada dhinac isaga oo u maraya dalalka Afrika, balse dhexdhexaadintaasi ma ahayn mid miro dhashay sababtoo ah Itoobiya ayaa la sheegay in ay wada hadalladaasi u arkaysay mid lagu soo qasbayo in ay faraha ka qaado gobolka Tigray iyada oo ku bedelanaysa in dagaalka la soo afjaro. Mareykanka ayaa sheegay in uu dhexdhexaad ka yahay arrinta Itoobiya, balse maamulka Biden ayaa 17kii bishii aynu ka soo gudubnay ee September cunaqabatayn markaasi saartay xubno Itoobiyaan ah isaga oo sidoo kalena 12kii November cunaqabatayn ku soo rogay saraakiil iyo shirkado Eritrean ah. haddii Itoobiya ay ku guuleysato amaba ay si buuxda gacanta ugu qabato Tigray, waxaa loo arki doonaa dalka ugu awoodda badan geeska Afrika. ka hor dagaalkii Tigray, Itoobiya waxay ka mid ahayd dalalka ugu kobaca dhaqaalaha badan iyada oo maalgashan jirtay dhismaha iyo waxbarashada. haatan dhaqaalaha Itoobiya ayaa ka soo guuraya dhanka beeraha una weecanaya warshadaha. haddii Itoobiya Masar kaga guuleysato biyo xireenka ay ka dhisayso webiga Niil, waxay noqon doontaa isha ugu weyn Afrika ee tamarta biyaha laga dhaliyo. tan iyo sanadkii 2000 Shiinaha ayaa mashaariicda Itoobiya ku maalgashanayay 12 bilyan oo dollar. gudaana daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka muuqaalka TV waa naga inta. haddii aad markaa ku gooreysayna daawatay subscribe channelka inoo saar sii share garay muuqaalka oo laag saar sidoo kalena gambaleelka furasi ee mar walba ku soo gaaraan xogaha inuu halkan soo gelin. waadna ku maasantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba. inta aan warkan kiisa kale aynu ku kulmi doonana saaxiibayaal sida iyo nabadgelyo.